السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال كسو دوادا إن شاء الله تعالى براروجين ير وانت على استينا حسوسيو مسلمين تقارهان ضدك سحرك أما إشرا لدى داعي أما دريمية أما كعب سقبابا إنو اسكاقا إلاليو لما كلمة دودا كوبا إن شاء الله تعالى أنا ديسو كنت بندورم سحرك إيشا انت بوا وحشرة شرعي أنو مضفرين لكن سي ليسكاقا دفاعه أما ليسكاقا سارة ليسكاقا داويو marka horena si looga hortago ayuu sharcigan ku jiray islaamkan cadiimka ah ee weynida badan ee nabi maxamed la siiyay calayhi salaatu wasalaam. haddaynu fiirino walaalayaal axaadiista nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam ummadayda inta badan ee dhimanaysa intooda badan markii xukunka ilaahay iyo qadarka ilaahay laga yimaado waxyaalaha dila waxa ugu badan waa isha wey. sidaa darteed baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa wax jira oo xaq ah oo sugan isha, yacni in lays cayuumo oo lays eleeyo ama laysa sixiro. nimco kastood haysatina waxba qof baa xasdaya leanna xasadku wuxuu ka imaanayaa wanaagaad haysatid. nimco ilaahay ku siiyey ee lagaa xasdaya, hadday noqoto nimco xagga maalka ah ama yani caruur wanaagsan ilaahay ku siiyey, ama yani farxad wanaagsan ilaahay ku siiyey, yani haddii alla kuuran yahay ama magac wanaagsan ilaahay ku siiyey, ama xikmad wanaagsan ilaahay ku siiyey, nimcada waa lagaa xastaya. nimco kasta waxbaa xastaya. sidaa darteed nabigeena waxaa ka soo aroortay dantiina markaad gudanaysaan waxaa ku gudataan inaad qarisaan, ha iska sheegin wax walba adugu. al abuurnimada ilaahay ku siiyey ha iska sheegin, cilmigaada iyo caqligaada ha iska sheegin, ha iska faafin meel kasta, yani ha ku sheegin wey. meel kasta iyo qof walba ha u sheegin. ummaddan aad arkaysid macnaheedu maahan ummad malaa'ig inay wada yihiin, maca daalika sidoo kale ma ahan inay wada shayaatiin yihiin ood ka shakidid oo tiraahda qof walbaana maxaasid ugu yahay ood raadsanaya. taasna looma baahna iyo waswaaskaa shaytaan. laakiin midda meesha taallaa waxay tahay dantiina markaad gudanaysaan qariya, yani waxaad ku gudataan inaad qarisaan, iska daadaadin, iska sheegsheegi, meel kastaa ka sheegin. laanna nimco kasta qof baa xasdaya, qof baa yani ay dhibaysaa. soo ma aragtaan walaalayaal. isha marka xilligii nabi maxamed waa lays ileeyay, ka horna waa lays ilayn jiray, ilaa yawmina haadana waa lays ilaynaya. ishuna waxay ku imaataa imaa qofku inuu kula cajabo iyo maarata inuu ku jeclaado. qaybo badan bay kala leedahay. qofkii kula cajabay oo khatar baa tahay, waxaana haysaaye waxaa ku tiraahdaa maasha allah dheh horya qumayahow, adiguna ku baraarugsano. markaa qofku arko dhalinyarta wax kugu arkaan ku dhahaan khatar baa tahay, wallah maasha allah dheh horyaa dheh qumay baa tahay. markay kula cajabaan waxaa la jiray inaad tirahda maasha allah, ilaahay baa sidaan ku siiyay alxamdulilah. soo ma aragtaa khasaare ayaan isku soo jeeday adduuniya aakhiro oo muhiim tahay inaan fahno walaalayaal. baaraka allahu fiikum. laba kelmadood oo kooban baan inaan ku xasuusiyo halkaa kan ugu talagalay. labadaa kelmadood oo badankiin aad taqaanaan ama dhammaantiin aad taqaanaan, laakiin waad xasuusinaya qaab kalena idinka tusayaa daawadeeda. maxaa weeye markaa il aad isle waa lagu ileeyey, waa lagu cayuumay, il qumayaa kugu dhacday, waxay doontaba ha noqoto, ama waa lagu sixray, waxbaa lagu akriyey, waa lagu madiideeyey. waa qaybo waxaasuna wada sixir ka mid a. waxaasuna haddaad dareentiin xanuunadaas waxaad tirahdaa laa xawla walaa quwata illaa billah. ma taqaanaa laa xawla walaa quwata illaa billah qiimahay leedahay? laa xawla walaa quwata illaa billah. albaab kastoo xiran ayadaa jebinaysa oo furaysa, dhibaato kastoo ku haysatan ayadaa uga baxaysaa. laa xawla walaa quwata illaa billah. nafta waqti kasta afkaada iyo naftaada iyo moognaan laa xawla walaa quwata illaa billah. wax walba ilahay kuu sahlaya, aqoonta ilahay kuu sahlaya way si fiican ina ufahantid, imtixaanka ilahay kuu sahlaya mid adduunya mid aakhiro, cudurrada ilahay kaaga qaadaya, dantaada ilahay kugu gudaya. laa xawla walaa quwata illaa billah.
وكيد كم إذا كيدتك جنة سيدنا محمد كسو أروتي عليه الصلاة والسلام حديثك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بل وحا سو أروتي لا حول ولا قوة إلا بالله إن يداويسو سغاشني سغال عذر شغاسني شغال عذر أي داويسا كروير متقنا فقره لا حول ولا قوة إلا بالله سغاشن إيه سغال عذر بيداويسا ومتك أقوي روحه سيئو ياي فقري وين مصيبة أنا لا أنت كلام محمد مداس مركو لا حول ولا قوة إلا بالله هم وقنان هنسيين ساعد والبا إن شاء الله تعالى فرج بدن با إلهي كغفر يا جل جلاله وعظم السلطان مدة كلا وحوي ماشي كحرونيسي صداقة عن توصار هداي هالكا نقطه هداي قربك نقطه هداي مدح نقطه هداي دحدا يا علاشي لغوها كلام ماشي دون تما نقطه وحانا ترادا الله أكبر على نفسي الله أكبر على كل شيء الله أكبر على نفسي إلهي ونفسي ذكوي إلهي بكون حاسدين تيو كوا مارت دتك إلهي بكون إلهي بشيك استكون كسوع العلي الله أكبر على نفسي الله أكبر على كل شيء كسوع العلي أيضا وقتي والب كسوع علي والله أنت ربك وقتي والبي والله أنت وقتي والبدعاء إلهي خير هيدي السيو أنت حنوصلنا لها داوي حاسدين تي ساحرين تي كوا حمان وضياشان الله ومدك قبط توبدنا هوا فتيو دغرتو بس كسالنت هذا آياتك دعاء النبي محمد الرعدي واتكات كانيسا wax walba xirxiraan waa buriya waa jajabaya laakiin may dadkeen ayaga waxay isdhigeen bila difaac adduunyo sida u ceyrinayaan baa la sixiya la ilaalinaya kadib bay soo dhacayaan kadib bay soo cawaadayaan waa musiibo marka horeba taxadar insha Allah ta'ala iska difaac adkaarta har yahamin iyo waqti kasta la jideeyay iska difaac shayaatiinta iyo sharkooda وكون نقونيا مركز أيجا يو حمان تكون نقونيسا ولا يحيق المكر سيء إلا بأهله حمان قف يسوم ليجا أيكون الله بندونتا لذلك هرولوير ساحر في سحر كيسا كون نقضي ياكل علم كده وآيات ربك تبارك وتعالى لا تبادوا ما تنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته